waa mahadsan tahay runtii caawa inaan idinla qaato waqti badan oo aad dhageysto macluumaadka halkan aad dhaafsanaysaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qof walba riboorkiisa iyo waxa khuseeya haday tahay wacyigelin haday tahay arrimaha diinta iyo haday tahay ganacsatada iyo amniga iyo guud ahaan wixii aaraah aad isku geenaysaan si aan ugala baxno sidii cudurkan aan uga adkaan lahayn ama aan ummadda runtii aan uga hortagi lahayn suusan ummadda oo safmarkaa uusan u dhibaataynin cudurkan waa musiibo laakiin wuxuuna baray in qaybaheena kala duwan ee bulshada ay qayb ka ahaato xal u raadinta ka hortagga iyo badbaadada shacabkeena aad iyo aad ayaan runtii kaga mahadcelinayaa maxaa yeelay waxaan isleeyahay qaarkiin inaydan waqtigan soo jeedin oo aad hore u seexataan laakiin hadda dee aad usoo jeedaan inay tahay hawl qaran iyo ummaddiina saa u badbaadin lahaydeen aad u keeni lahaydeen xal bacdama tabarteen aan ognahay waxaan ku talagelaynayna aysan ahayn cudurkan inuu noogu yimaado annagoo runtii systemkeena uusan dhisnayn aan ognahay dhaqaalaheena xaaladiisa suu yahay aan ognahay shacabkeena iyo dhaqankooda naqaano maxaan ku raahdaa amnigeena sida uu yahay in runtii intaanoo maskaxa isu timaado ay xal raadiso macnaheedu waxay tahay inaan qirsannahay ganacsato lagama maarmo dowladdana lagama maarmo dhakhaatiirta lagama maarmo amniga lagama maarmo waa isu wada baahannahay marka dowladdii oo dhan waa annaga cid gaar u leh oo cid gaar ah u xil saaran inaysan jirin haddii ay wax nagu dhacaan inaan u wada istaagayna kulligeen oo aan u wada shaqeynayna shacabkeena sidii aan wax ugu qaban lahayn runtii waa mas-uuliyad kulligeenna waa saaran qof walba dee wax walba meelba u ka lahaa waa xaqiiqo laakiin markay runta tahay ama runta timaado kulligeen hal ujeedaan leenahay oo ah dadkeenu inay badbaadaan oo ay bad qabaan dadkeenu inay amni helaan dadkeena inay nolol helaan dowladdeenu ay istaagto ay hana qaado caalamka aan la macaamilno oo sharaf iyo ciise aan ka helno intaasoo idil waa wax dowladdu ay ka shaqeynayso dowladdiina dee waa annagu idinkoo halkan fadhiyo weeye kulligiin matalaya qeybaha kala duwan ee bulshada idinkuna dee qeybtiina haysataan oo qeybtiina qabanaysaan oo wixii karaankeena ah ayaad qabanaysaan marka waa idin mahadcelinayaa mar kale waa idin hambalyeenayaa ra-iisul wasaaraha khaasatan sida uu u daadihinayo oo hawshaan uu isugu taxallujiyey oo runtii habeen walba uu usoo jeedo uu uga shaqeynayo aad iyo aad yaan runtii leadershipkiisa aan uga mahadcelinayaa iyo guud ahaan idinka oo naftigiina usoo jeeda habeenkii si dadkeenu ay badbaadaan